السلام عليكم waxaan muuqaalkan idinkula wadaagayaa 14 xeelado oo u isticmaali karid kombiyuutarkaaga kuna dhaqaaleynaya waqti aad u badan dadka kombiyuutarada isticmaala waxay u qaybsamaan 3 qaybood kuwa isticmaala mouse-ka kuwa kale oo isticmaala keyboard-ka iyo kuwa jecel inay la hadlaan Cortana ama Siri haddaba qolo kastaba waxaan idin wadaagi doonaa xeelado aydan horay u fahansanayn sida ay waqti badan kugu dhowrayaan sidoo kalena badin doona shaqada aad ka dhaxayso kombiyuutarkaaga laakiin waxaan ka codsanayaa inteenan guda gelin barnaamijkeena ku soo biirtay channelkeena Koreal kana mid noqoto bahda dhanka kore ee nolosha nambarka koowaad taabo Ctrl+T si aad u furato tab cusub marka aad isticmaalayso kombiyuutarkaaga inta aad flash jidi lahayd haddii aad tahay isticmaale MacBook waxaad tuujinaysaa Command+T halka aad taaban lahayd Control waxay arintan ku sahlaysaa inaad si degdeg ah u furato tab cusub nambarka labaad kaasho Google-ka adigoo raadinaya halka mushkiladda kombiyuutarkaaga haysata adigoon kaashan khubarada ku shaqo leh inta badan ciladaha kombiyuutarkeena soo haleela waxay u badan yihiin kuwa aad u sahlan laakiin marka ay nagu yimaadaan waxaan dareenaa walwal aad u fara badan haddaba daawada waxaan kugula talin lahaa in aad ku qorto Google-ka cilada ku haysata aadna ka dhex jibaaxdo xalalka ugu fudud ee ku hagaajin karto kombiyuutarkaaga inta badanna waxaad ka helaysaa Google-ka dhexdiisa xalalka ugu muhiimsan adigoon dhaqaale kaaga bixin nambarka saddexaad isticmaal Google-ka si aad u ogaato sarifka ama kala beddelka lacagaha waxaad doonaysaa inaad u safarto wadan Hiblaayo kama suuqaad waxa rabtaa inaad ogaato sarifka adigoon sarifle ama cid kale gaashan si yara waxaad Google-ka ugu qodhaa $100 imisa pound ayuu la mid yahay waxaana si sahlan ku ogaanaysaa qiimaha uu ka marayo sicirka sarifku waqti xaadirkaas nambarka afraad batteriga kombiyuutarkaagu wuxuu si fiican u dabaysmaa marka uu kombiyuutarkaagu yahay flight mode-ka marka aad kombiyuutarkaaga ka dhigtid flight mode-ka waxaad inta badan xiraysaa applicationo badan oo ka cuni lahaa dab fara badan oo ay ka mid yihiin Bluetooth-ka iyo Wi-Fi-ga taas oo ka yareeya culayska batteriga ku imaanaya waxayna sahlaysaa in kombiyuutarkaagu si dhaqso leh u charge gareysmo haba ka yaraaday intii hore 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo oo aad ku anfacaysa nambarka shanaad waxaad kaysan kartaa sawirada Google-ka adigoo tuujinaya Alt kadibna sawirka ku dhufanaya inta badan dadku waxay taabtaan buttonka midigta ah ee loo yaqaan right click kadibna ku dhuftaan save the photo ama download laakiin waxa jirta wado ka fudud kana dhaqso badan taasoo ah inaad ku dhufato alt kadibna aad sawirka falaarta ku taabato waxayna ku kaydsamaysaa dhanka downloadiska kombiyuutarkaaga hadaad leedahay MacBook waxaad taabataa Control kadibna waxaad ku dhufataa sawirka aad doonayso inaad la soo degto nambarka 6 qari IP address-ka kombiyuutarkaaga si ay cidnaba u ogaan dhaqdhaqaaqaaga location-ka aad ku sugan tahay ee internet-ka ka isticmaalayso okay marka koowaad waxaad u baahantahay inaad furato barnaamijka khaaska ah ee loo yaqaan VPN-ka si uu u bedelo goobtaada dhabta ah ee aad internet-ka ka isticmaalayso kadibna waxaad la soo degtaa barnaamijka la yiraahdo Peerflock isagoo ka saacidaya inaad si xor ah u isticmaasho internet-ka nambarka 7 adeegso barnaamijka f.lux si uu kaaga caawiyo in shaashada kombiyuutarkaagu si dhib la'aan ah ula qabsato jawiyada kala duwan ee ka shaqeynaysid waxaan ognahay in dadku inta badan ku dhibaatoodaan iyaga oo isticmaala night mode-ka ama xilliyada qaybtood ka qaada imtixaanuun laakiin marka aad la soo degto f.lux application-kan wuxuu si sahlan kaaga saacidayaa in uu cimilada ama jawiga aad ku jiro la falgalo shaashadana ka dhigo noocaas nambarka 8 inaad nidaamiso ama aad tirtido xogta ku saaran desktop-ka ama shaashadaadu waxay ka dhigaysaa kombiyuutarkaaga xawaarihiisa mid sareysa haddii aad tahay qof ka cabanaya kombiyuutarkiisu inuu aad u culus yahay miyaysan ahayn shaashadaadu mid aad u buuxda haday tahay jawaabtaadu haa mudane ama marwo isugu aruuri xogtaas hal folder ama file ka bacdina si nidaami applicationada aad u isticmaalayso waxaadna dhigtaa taskbar-ka kaas oo shaashadaada ka dhigaya mid aan saxmad badnayn kombiyuutarkaagana sahlaya adeegiisa nambarka 9 ogow qofka si xatooyo ah kula isticmaalayo Wi-Fi-gaaga intiina badan marka aan Wi-Fi-ga isticmaalayno soo ma dareentaan saxmad iyo khadka oo culays ku yimaado
waxaad awoodaa inaad beddesho passwordkaaga. waxaan se kugu bushaaraynayaa inaad awoodo inaad ogaato qofkan kula isticmaalaya khadkaaga. waxaana ku sahlaya barnaamijka loo yaqaano Who is on my Wi-Fi si aayar ahna u soo saaraya qofka kula isticmaalaya Wi-Fi-gaaga. nambarka 10aad waxaad soo celin kartaa xogtii aad masaxday xataa haddii aad dib u masaxdo recycle bin-kaaga. waxaan ognahay markaan xog dhilidno inay ku aruuraan dhanka recycle-ka, laakiin waxaa jira mar aad dhilido ama aad masaxdo sidoo kale recycle bin-ka. haddaba ciladaas sidee ayaad ku xallin kartaa? xalkeedu waxa weeyaan inaad la soo degto barnaamij la yiraahdo Recover. waxaad ku qoraysaa xogta kaa luntay nooceeda, kadibna waxaad ku dhufanaysaa raadi, waadna helaysaa. hase yeeshee mararka qaarkood waxaa laga yaabaa xogta kaa luntay haddii muddadeedu dheer tahay inaadan helin haba yaraatee xogtaas. nambarka 11aad haddii aad dareento calaamadaha kan soo socda, kombiyuutarkaaga waa lagula isticmaalay ama waa laga jabsaday. malaayiin dad ah ayaa kombiyuutaradooda waxaa soo weerarta burcad kombiyuutareedka, waxaana laga yaabaa inay maalin uun kugu dhacdo. marka aad ogaato in barnaamijka fayraska kombiyuutarkaagu uusan shaqaynayn amaba nambarka sirta ahaa uusan ku shaqaynayn, waxaad ogaataa in kombiyuutarkaaga lagula isticmaalayo. waxaase kale oo jira haddaad aragto calaamadda mouska shaashada kombiyuutarkaaga oo iska dhaqaaqaysa, waxaad ogaataa daawade in kombiyuutarkaaga lagula isticmaalayo. waxaan kugula talin lahaa inaad la tashato khabiir xagga kombiyuutarada ah. nambarka 12aad taabo Windows kadibna 2GC si aad ula sheekaysato Cortana. mid isticmaala Microsoft-ka kombiyuutarada ama noocyadii ugu dambeeyay ee shirkadda. waxaa jirta app loo yaqaano Cortana kuna saacidaysa inaad weydiiso waxyaabaha aad garan weydo isticmaalkooda ama aad ka wahsato inaad raadiso. si aayara waxaad u tuujisaa Windows+C kadibna la hadal weydiina su'aasha aad doonayso. haddaad isticmaalayso MacBook waxaad taabataa Command+Backspace si aad ula sheekaysato Siri. nambarka 13aad taabo Ctrl+Q si aad isaga xirto barnaamijyada webka ku saar ama taabiska aad isticmaalayso ee ku furan. haddaad isticmaalayso MacBook waxaad taabataa Command+Q, waana qaab fudud oo ku xiri kardho taabis kala duwan adigoon taaban mouskaaga ama wax shaqo ah oo kale qaban. nambarka 14aad taabo Ctrl+I waxa uu ka caawinayaa inaad qoraalka u beddesho Latin ama farta jiifta. inkastoo isticmaalkeedu badan yahay, haddana waxa uu aad kugu anfacayaa barnaamijyada qoraalka lagu qoro sida Word-ka. haddaad tahay bahda MacBook waxaad taabataa Command+I si ay u noqoto far Latin ah. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. waxaan ku weydiinayaa daawade ka waran xeeladaha kan sidii ayay ku anficeen. fadlan ugu soo biir kana mid noqo bahda Korean ee dhanka kore ee nolosha.